Cabqariga dagaalyahanka ka dagaalama buuraha dushooda, askarigii hore ee KGB, madaxweynaha haatan ee dowladda Ruushka. Ninkan ayaa dagaal adag kula jira dalalkii ay ugu magac dheeraayeen wadamada loo yaqaano Qowqaas iyo Balkaniska, dalalkii la dhihi jiray ee ku kala irdhoobay kadib dagaalkii labaad ee adduunka iyo dagaalkii qaboobaa ee lagu kala jarjaray Midoogii Sofiyeetka in uu dib u soo ceshto. Tallaabada haatan waxa ay ku dhacday dalka Ukraine ayadoona la ogyahay in dalal badan oo haatan ku hareersan Ruushka ay gebi ahaanba xulafo leeyihiin reer galbeedka sida Poland, Georgia, Romania iyo wadamo kale. Dharbaaxada ku dhacday Ukraine waxay dowlad muuqda u tahay dhammaan dalalka Balkaniska ka tirsan ee u hanqaltaagaya in ay ku sii noolaadaan magangelyada sacbatunka iyo stustuska jeesjeeskana ku dheehan ee reer galbeedku bixiyaan. Vladimir Putin ayaa sheegay khudbad uu jeedinayay shalay toole oo 2 saacadood qaadatay inuu edbin doono dhammaan wadamada ku caasiyay luuqadiisa ku hadasha ee degan wadamada Bariga Yurub. Waxa uuna sheegay in uu dhammaantood soo celin doono wadamadaas. Waxa uu ku nuuxnuuxsaday welibana si weyn afkiisa ugu adkeeyay wadanka Azerbaijan. Ruushku waxa uu si dhab ah ugu degdegay Ukraine. Maxay tahay sababta ka dambaysa in uu Ukraine u degdego dagaalkeeda? Ukraine iyo Ruushku waxa ay wadaagaan diin, dhaqan iyo dadka ugu badan ee Ukraine degana waa asal Ruushiyaan, dadka Ukrainishka ahna badi waa Ruushiyaan. China oo haatan ah saaxiibka ku weheliya Ruushka tilaabooyinka uu qaadayo oo uu ku haysto codka labaad ee veto-ga ahna dhaqaale kale oo weyn oo xitaa haddii uu u baahdo lacag uga deynsan karo dagaalada uu haatan la galay reer galbeedka ayaa ah China. China waxay halkan ka baranaysaa cashar weyn oo ku aadan sida Ruushku uu degdeg ugu soo afjaray bilaa qaylo Ukraine oo ahaa wadan weyn oo hubeysan. Sidoo kalena China waxay soo afjari kartaa Taiwan oo ku taamaysa inay noqoto dowlad ka madax bannaan China sida ay haatanba sheegaan. Haddii China ay hesho fursad ay dharbaaxa ugu dhufato Taiwan, waxay noqon doontaa cashar ay ka barteen Putin. Xi Jinping iyo Putinna telefoonadoodu kala joogsi ma lahan maalmahan oo Putin ku jiro dhoolatusyada quruxda badan. Sargaalkan soo hogaamiyay sirdoonka Ruushka heerka sarena ka gaaray arrimaha mukhaabaraadka ayaa haatan ku raaxaysanaya waayihiisa siyaasadda. Waxa uuna casharo u dhigayaa madaxweynayaal ay ka mid yihiin madaxweynaha Ukraine oo ahaan jiray actor comedian oo jili jiray filimaanta shactirada iyo madaxweynaha Mareykanka oo ahaan jiray siyaasi iyo ganacsade iyo madaxweynaha Ingiriiska oo ahaan jiray shirkad tareen iyo madaxweynaha wadanka loo yaqaano Faransiiska oo ahaan jiray macallin iskuul iyo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ah. Haddii China ay haatan ku kaliyeyso Ruushku uma baahnaba China laftirkeeda, laakiin waxa kaliya ay China ka caawin karto ayaa ah haddii golaha ammaanka ee qaramada midoobay la isugu yeero oo la yiraahdo si degdeg ah Ruushka waa in amar la siiyo inuu dagaalka joojiyo. China waxay ku garab istaagaysaa Ruushka codka diidmada qayaxan ee loo yaqaan veto power. Already waxa ay haystaan 2 cod halka kuwa kale ay haystaan 3 cod. Sidaa darteed golaha ammaanku waa 5 wadan, 2 ka mid ah haddii ay diidaanna oo ay negative dhahaan, mid ka mid ah haddii uu diido aysan shaqaynaynin veto power. Maxaad moodaa haddii 2 ay isku raacdo in dagaalka Ukraine uu yahay mid ansax ah oo jihaad ah? Maxaad u maleynaysaa? Ruushka haatan dagaalka uu ku jiro ee uu ku xoreynayo Ukraine ama uu dib ugu soo ceshanayo amaba uu ku qabsaday Ukraine invasion waxa ay reer galbeedku leeyihiin ayaa waxa ka qayb qaadanaya oo ku jira ciidamadii ugu badnaa ee muslimiin ah oo huwan calanka gaduudka iyo casaanka iyo buluugga ah ee wadanka Ruushka, kuwa oo ka soo jeeda gobollo badan iyo wadamo uu Ruushku ismaamul hooseedyo u sameeyay oo ay ka mid yihiin Shishan ama Chechnya iyo gobollo kale. Ruushka waa haatan dagaal ogaha ugu weyn ee caalamka dagaal uga jira marka laga soo tago Mareykanka oo waayadan nabadoon isku bedelay asagoona ciidamadiisa kala soo baxay Ciraaq, Afghanistan iyo wadamadii kale oo dulmiga ugu duulay. Hase yeeshee Ruushku haatan ayuuba u soo kaba iladay dagaal xilli Mareykanka iyo wadamadii dhammaa ee reer galbeedkuna ay u jeesteen nabadeey macaaney neecaw udgooni. Vladimir Putin waxa uu ka fiirsanayaa in uu dhaqaalihiisa
iyo hantidiisa galiyo dagaalo fara badan. Waxa uu haatan ku andacoonaya in Ukraine waxa ay u aadeen aysan ahayn dagaal toos ah ay ku burburinayaan dadka iyo dalka Ukraine, balse ay tahay wax ay uga fakirayaan amniga gobolka bariga Yurub. waxaana haatan dagaalka cabsidiisu ku sii baahaysaa wadamo waaweyn oo ka mid ah Yurub. ka waran haddii cabsi la seexan yahay Sweden iyo Finland, maxaad u maleynaysaa? Sidoo kale wadanka Ruushku waxa uu go'aan cad oo lama taabtaan ah ka qaatay in madaxda wadamada reer galbeedka kuwa Islaamka ama Carabta ee reer galbeedka u adeega iyo wadamada kale ee siyaasadaha Ameerika sida tooska u fuliya Israa'iil ka mid tahay in ay arrimahan boombooniyaan oo ay dhanka meediyaha uga hadlaan. wadankii arrimaha dagaalka Ruushka aad ugu sii dheeraadana waxa uu sheegay in uu talaab cad ka qaadi doono Vladimir Putin oo hadaladiisu aanay ahayn kuwa taban si toos ah u hadla. xilligan Ukraine waxay wajahaysaa caqabad adag, reer galbeedkuna kaliya waxa ay ku koobsadeen waxaan cunaqabateynaynaa Ruushka, waxaan cambaareynaa dagaalka uu ku qaaday Ukraine, waxaan ka xayiraynaa nidaamka bangiyada ee Swift loo yaqaano. haddii la xanibo nidaamka bangiyada Swift ee ku shaqeeyaan bangiyada ugu waaweyn Yurub iyo caalamka, waxa ku filan kaliya Jarmalka, Ingiriiska, Norway, Denmark, Finland, Italia, France, Sweden, Belgium oo uu ka jarto gaaska lagu karsado cuntada iyo midka lagu kululeeyo guryaha oo aan shaqay doonin iskuul, bangi, shirkad, wasaarad iyo xarun dawladeed intaba. Allahooyo, Yurub sidaan oo dhan miyay Ruushka ugu baahan tahay? bal maxay ula dagaalayaan? Vladimir Putin haddii uu tijaabadan ka gudbo wuxuu noqon doonaa madaxweynaha ugu awoodda badan caalamka. ninkan jaasjaaska iyo xaragada ku darsaday dagaalyahanimada ogow waa nin dagaal ooga ah oo waxa uu ka sameeyay Liibiya iyo Suuriya islaamku ma aanu iloobin. maalin maalmaha ka midana waa laga argudan doonaa. si qaasa Soomaalida waxaan leeyahay Ruushku waa kii Itoobiya noo jabiyay moodinina inaan ka badbadinayo, hase yeeshee ma dafirayo xaqiiqda Ruushku uu u leeyahay xaq rasmiga ah u leeyahay inuu iska difaaco daandaansiga NATO ee ay ku hayaan amnigiisa gudaha, maadaama Poland iyo wadamo ay ka mid yihiin Georgia, Estonia, Lithuania iyo wadamadaas oo dhan ay soo dhigteen gantaalo ku foorara Moscow. xaq buu u leeyahay Ruushku inuu isdifaaco. ra'yigaaga ka dhiibo, maxay kula tahay? Ruushku ma ku saxan yahay go'aanka uu ku qaatay dagaalka Ukraine mise uu ku qaldan yahay? halka Ukraine ay qaadayso heestii ahayd talaada la roogin oo lagu rafaada. saaxiib anaga iloobin like-ta iyo share-ta, waa noo muhiim. thank you. muuqaalo dambe intaan ka gaarino oo xiiso badan. amaana Allah.